sheekh umal wuxuu qofku u jeedo ma sheekh xasan waana inta badan dadku say u fasirayaan way leeyihiin sheekha waa galay ma laga qabto laakiin hadduu kayga qaadi lahaa oo dhihi lahaa xasan waajidi baa saas ah umaanaan qabsadeen xataa hadduu ku magacaabi lahaa wallahi ma qabsadeen dhacdo iyada laftarkeedana hadal haynteeda dhalaysay dhacdadaas markaa aniga adiga iyo bulshada waa dhageysanayna insha Allah kadib baan xukumaynaa ama aanu ka hadlaynaa insha Allah وحافظ قرآن يقانو عد قرحسن لكن هو جاهل اللهم سيد الله بونبونينا يو سقلفتي سوا بكت سوما يابا ما نريد على شيء لأنه رجع سوالي ذو قرآن كآخر كم يدو لكن أقوم بدن قرآن كمعني سأنو لهاي أيا نبى يلوي شيء كيوحول يا القرآن كانوا يقول بركي لا القرآن كان مارت ويقول بركي مقعب يقول سي حوله يقول سي ما شاء الله مركب ومغرور ومغرور إلهي مركب قرآن كبكو بركينا يوا مركب معنيه سوء كفهنسيو بقن كيسانو كوافجيو اللهم وفقنا يا رب لكن إلى القرآن كالفاتي سكيلية حفظ كيسيو عد قرحسن مقع كويالتو وقوغن لغو ديغو ودولدو كوغو سو دويان ولغو صعبيو وامتحان ما دورشو ما intaas baan ka soo qaadanaynaa sheekh umar ilaahay xafide ba hadal jeediyay hadalkaani in badan oo kamida dadku hadba dhinac u fasireen mar waxay soo saareen sheekh cabdirashiid cali suufi oo sheekh umar wuxuu la jeedaa sheekh cali suufi waa madax soo gelintii la sheegay aanu hadalka hadlaynaa muuqaalkii hore marna waxay dhaheen waa sheekh xasan oo adiga sawirkaas soo qaaday horta sheekhu cidna ma magacaabin qadiyadu ka hadlayna waa qadiyad jirta oo dad waxa jira quraanka xafisan laakiin macnihiisa iyo eraygiisa iyo meesha ku socday meesha u socda aan aqoon oo xaalad jirta xaaladan uu sheekhu ka hadlayo marka aanu ka tagno sheekh cabdirashiid inadu ku imaan waxaanu dhigan wuxuu u jeedo sheekh umar wuxuu qofku u jeedo ma sheekh xasan waana inta badan dadku say u fasirayaan way leeyihiin sheekha waa galay ma laga qabto الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ورد شيخ مقع ما قادن هوري هورت ما أركت مقالك وارك آديات بيوصلنا موضوع أنا سور كيجا صارة مرنا شيخ عبد الرشيد صارة هورت لما أكل قادي هاي مدكوات قف دي قرآن مر حفظيه وحامل قرآن ونقضه بفهم أو بغير فهم ninkaasi maradii salama qabsan karo imaamadiisa salama haysan karo waa nin tagay oo de ilaahayna subhanahu wa ta'ala nahdi bihi man nasha'u rabbi man nasha'u min ibadina wa la dooray hadii macnaheedu ku darsado oo si dadaalo oo ikhlaas ku darsado si wadana fabiha wa manzilida la rabay laakiin horta quraan mar hadii aad qabsato waa arintaasi imma cadaabad ku mutaysanaysa maalinta qiyaamaha وإما جنة يكجلسا مرول بحجة في عناقك ويوكوجعن حجة لك أو عليك لكن حجة لك أو عليك وحكوري صورته إن لقوسيو مركز كوعس يقولوا ربي إله الغواب لكن إنه كسي ربي الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب مركز لقوسيو نقف على القرآن لقار ديجو مركز اللي حنكرتا أما جيت في عنك كتوزي كرتوا هنا قرآن كايس وحكوا يريد إنه ربك دورته وقلبي إلهي دورته قلبي قاسي مرة دي قرآن قالي تاسوا مد ذاك الشيخ أمل قدامك قدام بيسوع أسكار قناي قارسة ما لا مضح يعني كم مرة كذا علماء النسوة مالية مثلا جعلنا هواي وقرآن تفسير كيسي وحول لبا إنه كبرنا يتعلين كبرنا أكتر قيمة ومقولة هاي مجع وقادها بيراتين مجرته لكن هدو كيغ قادي لا ودي لا حسن واجدي بساس وما انا قبسدين حتى تو مغاوله والله ما قبسدين صوت معي تahay waxaan u qaadan lahaa sheekaygo canaanana inay toosinayo de wixii iga dhiirigelinayo asluubtu umaray taas asay u taala laakiin ana waxaan u qaadan lahaa in arintaasi sharafeen iyo ahaan leedba laakiin magacii lama qaadin laakiin waxaan ka xumaaday aad uga xumaaday شيخ عبد الرشيد نسوي كسل صار ضدك السوشيال ميديا استعماله النميمة صعونة إنا لله وإنا إليه راجعون قال المولى جل جلاله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم عذاب نقدس إسحنون جنايو أيه ليه لرب سبحانه وتعالى مركز الشيخ أمر
شعب بالشيس وسودوين ولا أركي وكرامة وناقي iyo sharaftu agtiis ku leeyahay isu u qiimeynay hadana in la soo saaro sawirkiisa dadka social media waxaan ilaahay ka cabsada arinta kale Sheikh Umar ani guriga igu soo booqday Turkiya حتى وحبا يقول له وحكمت ها وحنا كبرنا واي قف حاسكيس وحبرايو ويدوان تاي وعروتي وحبرايو إنا كبرنا واي لأن يردي مركو كي يمت أو استقبالك وسمينا وحكشي كي وشيء وحياة صار وقول يابك بدنا أسرة كاملة المية قبله إجازة للسيناء إنه حاضر يقول يوصل بقضي وحنا يقولوا كي يوصل دوينا كي ومدت كي يوصل يقول إنه يوصل دوي كتر الجراي أو إيه يكملها marka imaan masaajidkiisan ku booqday marka sheekha cadawana ma dhaxtaalo ani shakhsiyan igama ha waa namiimnimo dheh waa wax banaanka yaalo isdaawac qadiyadu shaqo qaalay qadiyad jirta tabaqo jirta taban balse in ilaahay quraanka kugu barakeeyo oo quraanka kugu barakeeyo barakada quraanka waa taban barakadiisa ana laftigiisa baa taqaan bas ilaahay kugu barakeeyo laftigiisa kaliya waa intaas ka dhargeysaa meesha laga galabo quraanka ilaahay wax uu kaaga sii taban keefana ugu qasaaray waana aragtayo dugsiga waagi Soomaali markaan joognay معلمينت معلم وهذا الله هذا جيبها دوره معلم ولا ما ملضاي دقاقة جيرت أساع ونجري معلم ودرجين قفك الواحد ما تعبان جري شاكا أنا صراحة هذا القاعد كحسوس تجير كالسينة تجير كالسينة يا عادي صب هذا كور على عليه عادي مركا صحن كل السوق هذا هي اللي بيحلي هذا دين عود هذا دين عود هذا دين عود هذا بل يرى عيالك حافظ أنا ماشي إرد كورة فرد صحن كولا صوت أفني حنو وأنا أقولي إسكا عوشة معناها ميل تولا بعديات عادي الوص أراس مسوا على بري وده ده وحي لو قد بنيا وحال رابنا ما كان دلنيرada wixii dambe in la soo gaarsiyo عاديات kolka waxa la yiraahdaa guriga salkiisa mas ordiya ka soo baxay dhallinyarada waxay dhaheen xagga culimada maskay sii ishaareen maanta oo culimada nagu wareeriseen wixii dheef lahayd maskana halagsiyo ayagan xagga u gudfiyo ayaga soo marka waa la ixtiraami jiray waagi hore Soomaalidu waxay ku fiicnayd waxyaalaha aadka loo ixtiraami jiray waxa kamid ah qof ahlu diin qofkan diinba mar ahlu diin ma yahay darajadu doona ka gaarsanaaday waa la ixtiraami jiray warkiisa war lama saari jirin wuxuu yiraahday yaan la sameyn lama sameyn jiray waa loo soo xukun tagi jiray uu kala saari jiray addu Soomaalidu hore 50 sano ka hor 70 sano 100 sano ka hor hadda sawadaad reehebel balale iyo yahay waa la fiirinaya waa la caaya macnaha xurmadii baa ka dhuntay dadkii waxaana keenaya jabka iyo baaba waayo waxa la yiraahdaa ummadda haday baabada akhlaaqdeeda xumaata marka waa ka shaqeyn ay leeyihiin hadalkii soo qalloocinaynatii hadalkii bay soo qalloocinayna ay dhaheen waa sheekh xasan marka aniga sheekha waa leedahay wax yani aniga maanta aan tuhmayo anigu hadalka igu wada iyo xaqayga haduu igu wadi lahaana sharaf bay ahaan sharaf yahay duwaanaan oo sheekhaada ku canaantay waana warkiisa qaadata wax weyn ma aha ما شاء الله يعني نيد وناق وهذا قفنا تهمين أو هذا الك حتى دوا كوكو صعود هذا يقول أفترق ولا صحي كلام دوا قف إنه آمن هواي وصح هواي إن أدبض ما سنتهي أنت أصلا كسر قبيننا هذا جعلنا هاي وحكي لهم كتجنا إن راعين لهاي من بركان وكجود بلنا هاي أما بقصة قلبي قلنا وقر حسا أما ضد كدي رجلي سا هذا راعين لهاي قصة قبيننا الله يذم بركة ما ده وحكي لهم جرا إن شاء الله تعالى قصة زبطان كحسوس نبى تكار واجد دتك زب مركز السمينة يودت خاصة لوية دت خوات دوات اسكجرت وقصة عابرة هذا موضوع شغلك ولا هن بتصاحبنا عين مركز لبضن نينا أيس دمتي ماشي ينتقني مركز بدو قلب على هستاي وقف عن لا لوين عن لفصيح ما بقى عين نيجي مش تاجين مركز ماشي وتجي ولا سعيدي على ما ديوان قزني markaas intuu banaanka istaagay meeshka madax ka dhiibto wuxuu yiri waa inoo taalawda ayeeday markay dhimato hada hal xab biliso agaas ka saacadi oo aan ka soo insha Allah ku soo khatamayna yani ayeediisa dhimanaysa loo arkay yani wuxuu dhahay ayeeday markay dhimato zabta la sameeynaayo hal xab biliska ma cunayso dadka qaar oo dhigi jiray yaa dhintay maanta safka cunaa maqli jiray Allah musta'an insha Allah Allah idin barakeeyo insha Allah dumar badan halkaan sheekhay horta waa nooga xiran yihiin waxaan rabaa tala khaas ah oo dhaxal gal ah inaad u soo jeedisid barakallahu fiik quraanka in ilaahay isku xiraana duruufahan dhibaatadan ay uga bixi karaan dumar goorta in ciwaanka ka dhigan aad u wanaagsaneed runtii waxyaabo badan ba dadkan quraanka saara dacwo badan ay imaato ma sha Allah marka maqaayad markaad gasho dara miisaal yaraan soo qaaday maqaayad markaad gasho oo VIP ah lagu adeegayo oo markaad
موسك في غضب لقى قاضي لقوا خدمينايو raashinkan cunaysa dhaqaaliba ha ahaadee adoo duceynayo ayaad ka tagaysaa midda kale ibirka ah oo waxba oolin oo de kabariyada hata u yeeraysid hore aad aqalishintada waxa keenay horta miiskan iga masaxbal oo kan kuwan la iga qaad horta aan fadhiist aniga sheekada marayso ma geliso waan wad nacaysa dumarka nimankiina marti idin yihiin gurigeeda la joogaan gabadha wanaagsan oo mar waliba diyaarsan oo VIP da ah oo maxad u baahan tahay ku hayso waa maqaayada fiican oo dadkeeda diyaarsan oo de qofkii soo faraxsan gurigiisa ku nool yahay gabadha kale xaalkeeda xaal yahay oo khadka ka baxday oo maqaayadaas oo kabareeriga xataa marka loo yeeray taanka iga masax iyo marka lagu soo noqon maayo hadii arrintaas ku dhacdo ninkaasi maqaayad noocaas ku gacan galo marka la soo noqon maayo sababta maxay tahay waa lagu xumeeyay marka ninkaaga inuu gabar kale ka doono ama meel kale wax ka raadiyo sabab ha u noqon billahi tawfiq ما شاء الله مرايدون ما بس كرمكم الله هذا الكوبن ومعنا وين كفدي وي اد بود بانسنتا شيخي mar kalena waa ku mahadnaqaynaa adigayo walaalaha dhamaan baa salaamina بارك الله فيكم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته